مداحل كديو أما أنا يدنسار لي أحدي أعد لودين وإيقا أغيسي مداحل كديو أما أنا يدنسار لي أحدي أعد لودين وإيقا أغيسي وإيقا أغيسي إذا كسومرا dadkana daawanayo meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan habkii ay u dhacday doorashadii beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin oo lagu qabtay degmada Caluula oo ka tirsan gobolka Bari. daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaallo qurux badan oo ku saabsan sidii ay u yimaadeen wufuudii ka qayb gashay caleemasaarkaasi oo ahaa mid muddo badan la sugayay. barnaamijkan oo dhan daawadayaal waxa uu ku saabsan yahay sidii uu caleemasaarkaasi u dhacay annagoo ka bilaabi doona safar aan kaga tagnay degmada Boosaaso oo aan ku sii jeedno dhanka iyo Caluula oo ay ka socotay qabanqaabada doorashada beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin kaasi oo 28 bishan lagu caanushubay degmadaasi. daawadayaal nala daawada 28 bishii February degmada Caluula oo ka tirsan gobolka Bari waxaa lagu qabtay caleemasaarka beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin taasi oo ahayd mid muddo la sugayay si looga qayb galo. wufuud heer sare ah ayaa tagay goobta ay munaasabada ka dhacaysay si ay uga qayb galaan munaasabadaasi oo ahayd mid ka duwaneyd kuwii horey dalka Soomaaliya uga soo dhici jiray inta la og yahay. annagoo macluumaad badan idinka sii doona habkii ay xafladdu u dhacday balse aan ka hormariyo ka hor dhicitaankeedii warbixin ku saabsan diyaar garowgii loogu jiray ka qaybgalka munaasabadaasi. 25 February ee sanadkan wafdi dhinacyo badan isugu jira oo ay kamid ahaayeen nabadoono salaadiin iyo cuqaal isla markaasna uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Salaad Xareed ayaa waxa ay ka ambabaxeen degmada Boosaaso ee gobolka Bari si ay caleemasaarka goobjoog uga noqdaan. meelihii aan tagnay waxaa kamid ahaa tuulada Kalabayr oo ah halka looga leexdo laamiga si loo gaaro degmada Caluula oo uu diyaar garow ballaaran ka jiray. waxaana mid na loogu soo dhaweeyay dhammaan goobihii aan tagnay ee kala duwanaa. badankii waxaan filayaa inaad wada garateen wadadaas dheer ee haddana jidcadaha u eg waa wadadii aadaysay degmada Baargal oo ka tirsan gobolkan Bari. waxaana sidoo hore u sheegay daawadayaal oo qayb ka yahay safarkeena aan ugu wajahanahay degmada Caluula halkaasi oo ay ka dhici doonto doorashada beeldaajaha beesha Siwakhran. tuulooyinkii aan tagnay waxaa ka mid ahaa taageer Baargal iyo kuwo aad u fara badan oo dhammaantood laga dareemayay soo dhaweynta beeldaajaha cusub oo ah beeldaajiye da'yar oo aqoon-yahana. inkastoo soo dhaweynta beeldaajaha ay ka wada sidnaayeen dadweynaha ayaa haddana meelihii sida aadka ahaa naloogu soo dhaweeyay waxaa ka mid ahaa tuulada Bareedo oo ah meel taariikh weyn leh isla markaasna ah meeshii ay ka soo asaasmeen beesha Daarood oo aad u tarantay.
gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Salaad Xareed ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo baraarujina waxa uu jeediyay shacabka degmada Breedo taasi oo ku aadanayd caleemasaarka beeldaajaha Calbari beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin farxad weyn bay noo tahay maanta haawadan taariikhiyan meeshan ka soo jeednay asal ahaan dadka yagan hadda socda iyo intii hore joogay inaan maanta aan ku wada kulanno annagoo taariikh kale xusayna oo ah taariikhdeena soo jiraanka ahayd boqortooyadeena ama saldanadeena kulligoon oo dhan u diyaar u nahay heegan u nahay intana u soo jeedin annaguna intaas ugu soo safarnay baakay isu keenay annaga oo sii wadana safarkeena waxaan gudaha u galnay degmada Caluula oo ah meeshii ay ka dhacaysay doorashada beeldaajaha waxaana dadweyne aad u fara badan ay nagu soo dhaweeyeen meel ka baxsan degmada Caluula iyadoo aad loo adkeeyay ammaanka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland ayaa salaan sare waxa uu ka qaatay taliyaha ciidanka degmada gaashaanle sare Maxamed Xirsi Cumar Samatar kadibna waxaana loo galbiyay guriga martida degmada waxaa iminka daawadayaal garoonka diyaaradaha ee Caluula International Airport soo caga dhigatay diyaaradii siday wafdiga ka qayb galaya caleemasaarka beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin dib garoonka Caluula International Airport waxaa soo caga dhigatay diyaarad siday wafdigii ka qayb gali lahaa caleemasaarka beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin waxaana isugu jireen garaado salaadiin beeldaajiyaal isimo nabadoono iyo madax ka tirsan Puntland iyo wakiilka boqorka Daarood Burhaan Boqor Muuse afka hore garoonka waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyadoo aad loogu sacabatumayay wafdigaasi oo ahaa mid muddo weyn la sugayay si ay uga qayb galaan caleemasaarka beeldaajaha munaasabada caleemasaarka beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin ayaa la oran karaa wax badan ayay kaga duwan tahay munaasabadihii hore uga soo dhacay meelo kamid ah dalka Soomaaliya waxaana wufuudii ka qayb gashay caleemasaarkaasi ay degmada Caluula ku gaareen gaadiid kala duwan sida gaadiidka xirka kuwa dhulka iyo kuwa badda waxaana uu caleemasaarkaasi baal ka galaya munaasabadaha noocan oo kala ah maadaama horey loo arag caleemasaar midkan oo kala ah